dadka qaylqaylinayay hadday ka ahayd gabar Soomaaliyeed hadday ka ahayd anaga cid ma caayin cid ma bahdilin kaliya ها waxaan dhahnay ruux ama niiki oo kala dhahnay de ruux iyo niiki gabdhahan dhahnay haddaan iyaga ka wadna anaga qof ma soo magacaabin sawirkiisa ma soo qaadan haddaan ها iyaga ka wadna xitaa ruux iyo niiki anagoon dhihin before dhahayeenba firiina ku ها dhahayeen ka soo tag hadda gabar baa la dilaa layiri u fiirsaya gabadhaas la dilay waxaan u baahanahay raggii annaga nagu dhegdhegnaay ee farqaadna haystay ee dhahayay gabar baa eray xun laga dhahay hadda gabar baa la dilay ilaa iyo hadda maxaan u maqli la'ahay lifekooda ilaa iyo hadda maxaan u arki la'ahay bootadooda يس gabar baa خيانة dilay فيه واي ha ragga liil baliil ku dhegnaa aaway ragga liil baliil dhahayay aaway gabar baa naga waxyeelaysay gabar baa eray xun naga tiri gabar baa rag feereen xitaa dumar maaha rag baa feeray aaway raggii maa qalqaaliyaan raggii adigu kugu dhegnaa aaway أنا هذا مدو raggaas شيء أنا هذا مدو شيء مركب أنت قف أو هذا اللايف كان كوجرت ريكوردينج مرة تبغى كوه دينه يوتيوب جينا سينه وحبا وقف فايدة سنة إدين شيء هذا يسوع ليل بليل قبلها قلبي جود الدجاج ليل بليل قبلها وحيابها أو ضدك كلا إيش الشيء كريم أو أنا وأنت عركاش شيء تصالح وتصالح قبل كاستما كتيك توك صوت دوبته تلفون كسان أو قبسته من حسب مساوي إسكافو جيسا هل راوندي يقولوا فتاة راوندي كم حلو يقولوا فنا متقانين أبو كوسكوس كم معان قالوا قلت سويا لكن ما أركي كرتد أنا maya buu sheegaa fiiriya هل hadda مرة inaa كده kala حقله safranahay هل مرة كده حقله هل مرة كده حقله so waxaas lagu tusooya ka soo gudo marka anigu afkeyga aniga iskale qof bini aadan dhibaato kuma gaarsiin laakiin muhiimadu waxay tahay qofka dhibaateysan isla waqti xaadirkan dhibka haysto oo garabka u baahan aa lagaa rabaa inaad garab siisid ma ahan intaa meel soo fadhiistay inaad tiraa heesta maxaa saan loo dhaha adar heesta rag baa qarash ku bixiyey istuudiyo tegey waqti geliyey soo qoray dantii laga lahayna waa laga gaaray from the moment adiga aad ka hadasho dantii laga lahay waa laga gaaray so ku soo cabraad mid baan leeyahay marka aniga midaan leeyahay waxay tahay haddii la dhaho gabar la caawinaayo haddii la dhaho gabar la garab istaagaayo weligeenaan samayn jirnay dadka hadda qaylqaylinaya oon la aqoonin aan anaga dad caawinayna hadda xilligaa la taagan yahayna waxaan dhahaynaa gabar waxaa jirta la dilay fahmo la dhaho gabadhaas ayaa caawin u baahan ma ahan qof aan la aqoonin ma ahan maanta qof la dhahayo gabadhaas lama yaqaano akoonkeyga aan video uga soo dhex duwaa ma ahan waa gabar caan ah waa gabar haysato akoonta half milyan dadkaan isoo waco ma lifekeygii u dalayihin horta ayagoo og anoo life ku jiro waaya ii soo wacan midaan kuu sheegaa yacni lb kaamirada soo jeedso waa iga dhacday sorry gacanta iga dhacday no problem gabadha balilow gabadha waxay haysataa already half million so gabadhaas akoonkeeda waxaa ku xiran half million gabadhaas tiktokeeda la xiriir gabadhaas tiktokeeda tus caawintaa caawinaysid gabadhaas waxbaa la gaarsiiyey dhiigga shalay ku gubaayey aa liil baliil u arkaysay indhahaad liil baliil ku arkaysay ayaan u baahanahay hadda inaad ku aragtid gabadhaas raggii rabe inay kufsadaan gabadhaas raggii dhiigga ka keenay aaway raggi jaqjaqleenayey ee shalay liil baliil isikay oo walaalood ah keliya arkaayey aaway anaa hadda kuu sheeg shalay waxa lagu arkaayay dhib aa geysata ma ahayn shalay waxa lagu arkaayay $100 ku soo galay صح $100 hadduu kaa soo wereero meeshoo kale laga dabagala maano صح laakiin soo u soo socday $100 af libaaxoo soo galay waayahay marka hadda waxaan leeyahay hadda midaa haya hadda waxaan leeyahay gabadhaas fiiri faataalayaashaas wax ma caawinayaan marka caawinta rasmiga loo baahan yahay ee gabar dhibaato haysato iyaga lama arkaayo laakiin gabadha tiktokeeda meeqa ku jira ay dhahday gabadha tiktokeeda waxay haysataa half million followers haysataa okay fiiriya half million followers su'aalaha ku weydiinaa maanta dadka live-ka ku jirana waa weydiinaa live-kayga dadka ku jirana waa weydiinaa live-kan ma ku jiraa maanta qof aan awoodin $1 ma kuma jiro dabcan badi way awoodaan badida sheegays maxaa qof kasta oo live-kan ku jira $1 wuu awoodaa sababtuu awoodaa kuu sheegaa telefoon oo haystaa jaajar ugu jira koronta ugu jirta internet ugu jira $1 wuu awoodi karaa live-kan ma ku jiraa qof aan awoodin $1 waa maya ya
kulli way awoodaan 500 oo kun oo qof followers u ah calaa qof $1 kaliya hadduu u diro waxay haystaa 500 oo kun oo dollar u haysataa cid kuma dhihin 100 u dir cid kuma dhihin milyan u dir cid kuma dhihin 2 milyan u dir calaa qof hadduu u diro $1 oo kaliya waxay haystaa 500 oo kun oo dollar nolosheedana way caawisaa isbitaalkeedana way caawisaa nolosheedana heer kale sii gaarsii kartaa laakiin runta kuu sheegaa from the moment ee halkaas dollar ay imaato qof run u dhibaataysan in lagu caawiyo fake lama rabo qof run u dhibaataysan markay imaato in la caawiyo been kuma sheegayo qof walba halkiisa dollar wuxuu kala miisaan noqonaa 1 milyan oo miisaan la noqonaa calaa qof $1 hadduu siiyo 500 oo kun oo dollar ay haysataa sawa beema ya been ma taas so aniga midaan leeyahay marka qofaa ku jirta dhala 500 oo kun oo qofaa ku jirta ma dhala masha 500 oo qof akoonkeeda dabcan $5 million way ka arkay iyada guys xisaabtiisa in ka qaldamin 500 oo qof markay tahay ala qof $1 hadduu bixiyo waa 500 oo dollar laakiin 500 oo kun oo qof markay tahay ala qof $1 hadduu bixiyo waa 500 oo kun oo dollar xisaabtiisa in ka qaldamin ninkan educated waa ku soo cabraad adaa kule يعني gabadhaas hadda fiiriya waxay haysataa la dhahay 533 kun ee dad yacaanka anagoo kala atashaka naga raadiya ee iska dhiga inay gabdho u doodayaan xilligaas markii la joogo maanto kala caaween yani easy hadda maanto kala aan ku jiray annaga hadda waxaan leenahay gabadhaas waa walaasheen qabiilkeeda waxba nagama gelin meesha ka soo jeed waxba nagama gelin gabar Soomaaliyeed oo walaasheen ah waaye oo dhibaatada gaartayna qof kasta oo Soomaali ah ayaa ka danqanaya shalay Muqdisho lagu soo dhibaateeyay waxba looguma qaban way ka soo carartay Nairobi ee safety u maaday Nairobi ee safety ugu umaaday arag iyo dumar haddana ku dileen yani videoga iyada ee leedahay ee soo duubta ee dhahayso ragow anigoo jiifana waxa waa iga tari weydeen anoo soo jeedana waxa waa iga tari weydeen ilaahay aan ku daayay videogaas aad u idamba والله بينكم مشي آذو إيدمقي آذا وحماضي آذا ونحر حد لا يفكر جرتها الله أيوب حد ما لا يفكر جرتها حد لا يفكر جرتها أيوب كان لا يفكر جرتها ذاك كومنتي وسوق قرآن anyway لا يفكر جرت فيري أيوب كان هذا لا يفكر جرت حتى محمد جبر دبعته سنوة هذا نمد هذا كل واحد يدين شيء مركي قفل دبعته يو Soomaali da adusha ka saaraysiin ka dhaafa shalay marka anaga heesta qaadayna gabdha Soomaaliyeed saan la yeelay okay waxa saan yeelay soo wiilal Soomaaliyeed ma aha soo anaga Soomaali mini hadda gabar la dilay gabar Soomaaliyeed la dilay soo waxa dilay dadka la Soomaaliyeed ma aha muhiimadu waxa way qofka sidee loo caawiyaa sidee garab loo siiya anigoo live kan ka faa'iideysanaya aniga iyo siika live kan ka faa'iideysanayno waxaan diyaar u nahay gabadhaas walaasheena wax walba oo lagu caawinayo aniga ahaanteeda siikeena aniga ka mas'uula walaalkay iga weyn waay ما شاء الله ولكن ليل قليل وأدي ولكن soo wax walba oo gabadhaas lagu caawinayo aniga oo ku hadlaya magacayga Salaad Maxamed Cali Nuur diyaaran ula ah wax walba lagu caawinayo oo aniga dhankayga soo gaara 100% diyaaran ula ah marka gabadha hal caawiyo yaansan lagu caawin kaliya hadartan waxay u baahan tahay caafimaad waxaan u baahan tahay nabadgelyo caafimaad iyo nabadgelyo waa la sii karaa hadda ayub ka soo baxdo habeen dambe ani ay baahato diyaar ah wahay yani hadda ayub caawiyay yani habeen dambe ani caawiyo habeenka ku xiga leel balal caawiyo habeenka ku xiga caawiyo aniga live tiktok kuma caawinaan runta sheega live tiktok hada soo geliyo sharafteeda on ba ku sii dhimanaysa wax ay u faa'iideynayso ma jirto sharafteeda on ba ku sii dhimanaysa qofkii daacad ah oo raba gabadhaas inuu caawiyo fadhigeeda ku caawiyo tusaale in tusa $1 marka gifti ahaan ugu soo dirto TikTok ayadu waxay helaysaa $500 $500 waxa qaadanaya TikTok $500 waxay ku sii diray PayPal markay ku sii dirto konton laga haraa ninkii PayPalka dukaanka lacagta uga bixi lahay asna 100 la sii haraa soo kunkii aad dirto $300 inay gaartaa laga yaabaa haddaad ka baxsanaysid oo gabadhaas aad rabtid inaa caawiso lacagta TikTok u marsiinaysid jooji lacagteeda u dir gabadhu waxay leedahay contact meel laga helay leedahay Soomaalina leesma aamino lacagta iyada u dira